Bini'aadamkeenu waxaynu ku noolahay dheef maxaa yeelay waxaynu ku noolahay adduunkan aadka u quruxda badan dhexdiisuna ahaaday waxyaabo qurux badan haba ahaato quruxdaasi mid dabiici ah oo siduu Alle u sameeyey ah ama mid bini'aadamkani soo darisay. Laakiin waxaa jiro amaakin caalamkan ku yaalo aadna u qurux badan dhab ahaantii, welibana leh cajaa'ib la yaab leh. Sidaan u rumaysano in meelahani adduunka ku yaalaan waa inaynu ku aragnaa indhaheena quruxdooda iyo cajaa'ibtooda. Flinders Sheet Australia waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah beeraha ugu quruxda badan adduunka, welibana dabiiciga ah. Waxa ugu quruxda badan ee dhexdeeda ahaadayna waxaa ka mid ah dhagaxaan la yaab leh oo kaga yaala dhinaca koonfureed ee beertan. Beertan waxa ay aasaasmatay malaayiin sano ka hor, waxaadna awoodaa inaad booqato waqtiga aad doonto maalintii. Laakiin waqtiga ugu wanaagsan waa marka ay qorraxdu soo baxayso iyo marka ay dhacayso, maxaa yeelay qorraxdu aad bay u iftiimaysaa, dabkuna ama qorraxdeeduna aad buu kugu dhagayaa. Dhagaxaantana waxay u beddeshay qorraxdu guduud tiq ah, waxaana laga dhisay buundo ka samaysan alwaax la ilaalinayo dalxiisayaasha ammaankooda. Gurigii qalfoofta ee Namsa meeshan waxaa lagu tiriyaa meelaha isla markaana laga helo raadadka dadkii hore ama qalfoofta dadkii hore. Waxaa la yaab leh in meeshani ay yaalaan qalfoofta dadkii hore iyo meydadka dadkii hore ee Baariis. Waxaa lagu tiriyaa madxaf qabuuri ah, waxaana lagu qurxiyey qalfooftu sawiro, waxaana lagu qoray magacyada dadkii hore ee dhintay qaarkood. Waxaana lagu xifdiyaa qalfooftu dhalooyin la yaab leh misna adeeg badan, waxaana lagu saamaxayaa inaad aragto. Waxaa mamnuuca laakiin inaad taabato. Buurihii dabka ee Azerbaijan waxaa laga yaabaa in hore aad u maqashay in Azerbaijan loo yaqaano dhulkii dabka, laakiin waxaa ku yaalo buuro lagu magacaabo buurihii dabka. Dabkuna waa mid dabiici ah sanadka oo dhan, isagoo aan kala go'aynin muddo qarniyaal ah. Sababta cilmi ahaaneedna waxaa lagu sheegay in gaaska iyo naftida dabiiciga ah ay yihiin kuwo aad uga badan dhulkaas. Dadka dalxiisayaashuna waxay u isticmaalaan dabka inay isku kululeeyaan ayna meesha ku shaah-cabaan, khaasatan xilliga qaboobaha. Xeebtii Doofaarka waa meel ka mid ah meelaha ugu quruxda badan adduunka, lehna cajaa'ib la yaab leh. Waxay ka kooban tahay jasiirado yar, jasiirad walbana waxay leedahay sixir u khaas ah ama wax lala yaabo. Mid ka mid ah jasiiradaha dadkeedu maalin ma imaadaan ilaa ayagoo wata doonfaaro maahe. Doonfaaradana waxay jecel yihiin la ciyaarta dalxiisayaasha, laakiin shardi inay siiyaan cunto. Waxaana la isweydiinayaa maxaa doonfaarada hoy uga dhigay xeebtan. Aragti ayaa dhehaysa in hadda ka hor meeshani dooni ay ku quusatay, dadkii saarnaana wax badbaadiya la waayay. Xilligaana waxaa doonta saarnaa doonfaaro, sidaasna ayay uga badbaadeen, sidaas ayayna hoy ugu noqotay meeshan. Labada webi ee Iraaf iyo Roon waxay ku yaalaan labada webiba Suez, beledkii ku caanbaxay quruxda dabiiciga ah. Webiga Roon waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah webiyada ugu dheer ee qaaradda Yurub. Labada webi waxay ku kulmaan magaalada Geneva, laakiin iskuma darmayaan weligood, maxaa yeelay culeyska biyahooda ayaa kala duwan. Webiga Roon kalarkiisu waa buluug, halka webiga Roof kalarkiisu uu yahay cadays. Meesha ay ku kulmaan ayaa ah meel aad u qurux badan. Haddaba daawade, shanta meel aan kuu soo sheegay meesha kula qurux badan aadna jeclaan lahayd inaad mar un booqato, haddaba inoogu reeb kommentiga. Mahadsanidin.